رئيس وزراء ku-xigeenka golaha wasiirada ee halka nala jooga gudoomiyaha gobolka Banaadir culimada Soomaaliyeed ee nooga kala timid dibadda iyo gudaha dhammaan marti sharafta kale bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allah mahadle oo maanta suurtageliyay inaan ka soo wada qayb galno culimadii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka runtii indhargarad ku ah indhaha u ah ummadda Soomaaliyeed hadday ka yimaadeen dibadda iyo gudahaba iyo dowladooda inay maanta goobjoog ka wada yihiin shirweynahan oo ah sanadkii ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho lagu qabto waxaan rajeynayaa insha Allah sanad walba inay noo noqoto aado noo noqoto oo intaan uu ka sii ballaarto hadduu ay yiraahdo xaqiiqatan shirweynahan maanta dowladda iyo culimadu ay goobjoog ka yihiin ay soo wada qabanqaabiyeen ay ka wada shaqeeyeen macnaheedu waxay tahay in la gaaray waqtigii culimada Soomaaliyeed ay qaadan lahayn kaalintoodii sax ahayd iyagoo midaysan waa ku faraxsanahay inaan arko maanta culimadeennii oo midaysan iyo dowladdoodii oo wada shaqayn toos leh mawduuca laga hadlayo 3 bil soo socotana ay tahay culimada Soomaaliyeed iyo dowladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dib u heshiisiinta tan labaad inaan ka hadalno maxaan ku yiraahdaa xagjirnimada iyo sidii looga hortagi lahaa ama sidii loola dagaali lahaa xaqiiqatan xagjirnimadu annagu waxay noo geysatay dhibaatooyin aad waaweyn ay ugu horeyso inay la dagaalamaan xagjirka oo annagu aan dhahno argagixisada dowladnimadana inay la dagaalaan ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin shacabkeenna iyo dadkeenna ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin diinteenna suuban ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin quruxdii iyo sharafkii dalkeenna uu lahaan jiray ay cadow ku yihiin sidaas darteed waxaa weeye in culimmadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bil soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa iyo wada shaqayn buuxda culimmada Soomaaliyeed iyo dowladdu ay u lahaan lahaayeen waxaan rabaa inaan idiin sharxo oo warbixin yar ka siiyo waxa aan ka wada shaqaynayno iyo caqabadaha na haysta waxaa laga yaabaa qof walba inuu soo arko laakiin iyadoo dhab ah waxay tahay waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed taas waa mid caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celiyo iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii markii laga hadlayo dowlad wanaag marka laga hadlayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meesha ka soo geli karto meel ay ka soo geli karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalam la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo wadamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeena uu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano siday wax ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tii yaan gelaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinka aan qabno waxa weeye oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxa loo yaqaano dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fakra duwanaado qof walba ra'yigiisu soo jeediyo uu ka hadlo program iyo agenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yiraahdo مثلا dowladdu programyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solution xalkuna
وكو يلابي يسده تاسي ما أها معارض معه وقف دونايا أو constructive أو دونايا إن دولة دمده محاكو راجعان كجيستو اسمه هذا مركي لقى هلايو دولة دمده إن جيتك جهد لو بويو oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan qaadno oo qalaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dowladda dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay Soomaaliya faragashato oo dadkeenu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo la isu dhiibo shisheeye la isu dhiibo burburka institutionska dowladda haddaad aragtaan dowlad xoog leh waxay haystaa institutions hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya ayay haysataa oo dadka ka shaqeeya ay maxaan ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo waxaa la rabaa laba qof oo waala ah haddii ay wax tari karaan qarnimada iyo dowladnimadeenna in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yiraahdo ha lagu bedelo si maxaan ku raahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeena way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo civiliankaba maxaa yeelay dadkeenu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn inay aqoontooda ku yarta wax dowladnimo tahay oo dowladnimo loo arko wax qof leeyahay shakhsi ah laakiin aan loo arag wax ummad oo dhan u dhaxaysa oo qof walba uu wax ku darsado hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado maxaan ku yidhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof hadduu aqoon-yahan yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisu ay tahay inuu ku darsado oo weliba qofku u shaqeeya dowladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwo ka badan ayaa runtii dowladnimadeena haysta sida la keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyno dowlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteena noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas u noqoto dowladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan wey haddaadan ciidan lahayn qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisu u kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan oo runtii la tartami kara ama la jaan qaadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeelay culummadu waa indhaha bulshada weeye culummadu waa dadka keliya ay shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dhegaystaan markii culummadu ay taageerto dowladdeeda oo caqabadahan aan sheegay ay qayb ka noqoto sidii caqabadahan maxaan ku rahaa looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa waxaan aaminsanahay 50% dhibaatada Soomaaliya inay yaraan karto yaan aaminsanahay maxaa yeelay culummadu waxa weeye maalin walbaba dee waxay ka hadlaan waxa xaqa ah waxa wanaagsan ay ka hadlaan marka waxa wanaagsan oo xaqa ah ay ka hadlaan haddii ay ku apply gareeyaan dowladnimada iyo shacabkaasu inay ahaadaan shacab ka dambeeya madaxdooda
madaxdoodana ay ku amraan ama ay kula dardaarmaan sida aan sheegay inay ka shaqeeyaan wax wanaagsan iyo maslaxadda ummadooda ay ka qayb galaan sidaad sheegteen arrimaha amniga oo qolooyinkan dhibka wada oo runtii argagixisada ah oo xagjirka ah inay bannaanka u soo saaraan oo ay la hadlaan oo ay kala hadlaan sidii ugu biirin kuwa ku jirana ay uga soo celiyaan intaas keliya maaha haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshisiinta dowladda iyo iyaga waxa weeye waa door waa kaalin culammada soomaaliyeed u furan maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen haddaad tustaan maxaanku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso 11 sana la marayaa hadda dalkan inta uu dagaal ku jiro dagaalkaasu uu yahay dagaal xag jireed dagaal argagixisa ah waxaa soo maray 4 maamul oo anigu aan ugu dambeeyo ilaa intee bay sii soconaysaa marka waa baaba'een iyaguna waxa baaba'ayana waa ummad Soomaaliyeed weeye waxa iyaga ka baaba'aya waa wiilasheenii waxa ay baabi'inayaana waa wiilasheenii iyo hooyooyinkeenii iyo carruurteenii iyo dadkeenii haldoorka ahaa yaan u faa'iideynay marka iyada u faa'iideeyeen waxa weeye ilaahay ha noo soo hadeeyo ilaahay ha noo soo celiyo idinkuna inaad kaalintaas qaadataan oo aad la dardaarantaan waana midaysantihiin ilaahayna ha idin sii mideeyo waxaan aaminsanahay culummadu waa indhihii ummadda Soomaaliyeed iyo indhaha guud ahaan muslimiinta caalamka inaad si saxa ah oo wanaagsan oo runtii nidaamsan aan u wada shaqeyno cadowgaas aan isku meel uga soo istaagno haddii intaasaan isla helno waxaan aaminsanahay oo aad ku guulaysataan ama aad si xoog uga shaqaysaan wacyigelinta iyo kor u qaadista wacyiga shacabka Soomaaliyeed oo aad ku wacyigelisaan in nabaddu ay wanaagsan tahay nabadduna maxaan kula keenisteedu ay tahay mas-uuliyad wadareed dowladdana lagu taageero gacan lagu siiyo waxaan aaminsanahay inay nabadda Soomaaliya ay aad iyo aad isu dhawaanayso waxa kale oo iyagana qayb weyn ka qaadan kara ganacsatada oo ilaahay xoolihii siiyey xoolahaasi inay ku bixiyaan sidii dalkan uu nabad uu noqon lahaa sidii dowladdu u istaagi lahayd sidii dowladda ay uga haysan lahayd dhaqaale ay maxaan ku raahdaa howlaha amniga iyo howlaha adeega bulshada ay ku fuliso aysan dowladda aadin dad shisheeye oo aysan ka raadsan dhaqaale aysan ka raadsan marka iyada laftigeeda waxa weeye waa door ama kaalin culummadu ay runtii qaadan karto shacabkana ay kala hadasho inay dowladdan iyagaa iska leh oo dowladdu waa shacabkii weeye inay bixiyaan kow nabadgelyo kala shaqeeyaan canshuurtana bixiyaan ganacsatada saasoo kale lagu dhiirigeliyo inay qayb ka qaataan inay bixiyaan canshuuraha si dowladdaasi ay u qaadato mas-uuliyaddeeda oo ah